Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan casharadeen imtixaanaha ahay ee noo socon jiray. Waxaan sameeyey group brefaat ah, yacni arday khaas ah wax lagu baraayo. Haddii aad jeceshahay inaad kusoo biirto, fadlan linkiga hoose igala soo xiriir. Hadda casharadan YouTube-ka maalmahan waan ka caajisay. Maanta waxaan idin barayaa qaabka loo isticmaalo Python iyo mataqaanaa Phantom iyo mataqaanaa JMN cryptocurrency qaabka lacag looga sameeyo. Python waa application kale oo sida luqadda JavaScript la mid ah waaye, laakiin that's advanced inuu yahay umaleynaya, yani aanan hadda la awoodin inaad isticmaashiin. Marka kani waxaa la dhahaa website-kan GMGN. Waxaa yacni lagu soo gudbiyaa ama lagu soo sameeyaa coinska cusub ama AI-yada cusub ee hadda suuqa soo galaya, sida meme coinska inta badan ayaa ugu badan. New periodska haddii aan hadda galno, waxaa arkaysaa halkan markaa ay taabatid 5 minutes ugu dambeeyay coininkii la soo geliyay ama meme coinska la soo geliyay. Sidoo kale 1 minute ugu dambeeyay saacada halkan aad ka bedeli kartaa. Kan wuxuu ka caawinayaa inaad aragtid coinska ama meme coinska cusub. Sidoo kale kan wuxuu aad uga horumarsan yahay kan oo lagu magacaabo Dexscreen. Dexscreen-kan yacni waxyaabaha ma ku kala saarayo. Hadda kani waa wallet-kayga. Waxaa la dhahaa ishek Phantom haddaad furatid sida qaabka loo furto cashir kale aan kasoo samayn doonaa. Laakiin markaad Phantom isticmaalaysid iyo Trust Wallet, waxaa aad iyo aad yacni casri u ah, advanced u ah, yacni features badan, ka isticmaal fudud, kugu xirmayo website kasta oo aad rabtid inaad meme coins aad ka trade gareysid. Waa Phantom. Inta ugu badan waxay isticmaalaan asiga ay isticmaalaan. Haddaba labadan waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay kan yacni wuxuu ku soo wada saarayaa price-ka waxyaabaha dhan, laakiin ma ku kala sheegayo coinka riskiga ku jira iyo coinka fiican ku kala sheegayo. Wax dhan waa isku dhex jiraan. Yacni waa qaab yacni complicated ah, qof yaqaano unbaa ka baxsan karo. Marka kan haddii aan isku dayo GMG-gan, waxaad tegaysaa GMG-ga ku dhufanaysaa loogadiisa. Okay, frame-ka ugu horeeyo noocan waaye. Halkan hoose markaad aragtid wuxuu ku kala saaraa revert, following, snipers. Yacni coinka ama meme coinskan in la snap gareeyo. Hadda kan oo kale waxaa la sameeyay 1 hour ka hor oo kale. Wuxuu marayaa market cap-kiisa 68,000 ayuu yahay. Waxaad kaloo aad ogaan doontaa marka hadda tusaale ahaan oo kale mid waxaan fiirihaynaa la sameeyay ka soo qaad 24 hours ugu dambeeyay, 6 saac ugu dambeeyay. Okay, kan oo kale ayaan ku dhufanaynaa. Kan oo kale markaan ku dhufano, halkan waxaa kaaga soo baxayo chartigiisi. Yacni chartigiisi waa marra lagu kala baxay. Yacni coinkan inkastoo oo yacni yahay hadda mid riski aad ah uu sheegaya maalka. Meeshan waxaa ku jirto 2 snipers, 3%. Yacni waxa uu iska yahay yacni ilaa ma fiicna kan oo kale waa ka gudbaynaa. Kuma qancin yacni. Okay, tusaale ahaan kaba soo qaad 4 hour, 1 hour, 6 hour aan joogno. 6 hour markaan joogno 28, 2 hours. Yes, 2 hours ayaa kan lisimid. Tusaale ahaan practice waaye. Waxaan kugu tusaa yacni qaabka yacni aad ku xulan lahayd coinka. Hadda tusaale ahaan kan oo kale wuu soo dhacay, waa laga kala baxay. Laakiin maxaad ku cadaynaysaa inuu yahay coin in meme coins fiican uu yahay oo lacag ka samayn kartid iyo inaadan ka samayn karin? Tusaale ahaan halkan markaad fiirisid 6% waaye cabsida ama aan yacni normaalka u yahay, yacni calaamadda u sheegaysaa. Top 10-ka waa 20% oo maraa. This is not safe really. Kan
yacni waa laga kala baxay tusaale ahaan oo kale. Mar horaa lagu kala faa'iideysta hadda dhulka ku jira laga yaabo inuu kor u soo kaco. Okay, halkan waxaa markasta kaaga sheegaya snap risk markii kan la joogo, yacni ma ogaan kartid snap risk ku jiro, yacni qaab si fudud ah kuma ogaan kartid sida kan oo kale. Hadda kan oo kale markii yacni boqolkiiba 70 oo halkaas marayo, yacni it's okay waaye. Yacni coins ka kale hadda kii hadaaye wuxuu ku jiray laba snap risk ku jirtay soo ma arkin. Inkastoo yacni lagu kala baxa sigana mar hore. Okay, waxaan fiirinaa kan ku xigo. Okay, okay. Oh, oh, no. Kan hadda arkin snap risk ku jira 5 waaye. Dadka haysto boqolkiiba 8 waaye, yacni ma fadhiyo. Okay, waxaan fiirinaynaa kuwa ku dhisan Solana ama meme coin-yada. Waxaan fiirinaynaa new berries-ka cusub oo 24 hours-kii soo geliyay. Hadda okay, kuwan locked waaye. Okay, kan ugu horeeya ku dhufo. Yes, purple. Yeah, mid fiican. This one aad arkaysid wuxuu sheegayaa yacni inuu yahay mid la isku halayn karo, laakiin I don't wanna go inaan yacni isticmaalo ma doonayo. Tusaale ahaan snap risk-ka hadda meeshaan boqolkiiba 70 waa ayuu leeyahay, boqolkiiba 2 uu leeyahay. Ma ila fiicno boqolkiiba 2 meeshaas waxaa laga rabaa boqolkiiba 70 inay tahay. It's not good. Kan boqolkiiba 100 waa ayuu leeyahay. Kan risk rankiisa this running-kiisa waa risky uu leeyahay, low quality. Hadda kan oo kale it's okay but liquidity ma lahan, wax liquidity ma lahan. Yacni laguma jiro, qof ku jirta ma lahan, waa lagu kala baxa. Qofaa iska soo sameeyay waa lagu kala baxa. Laakiin wuxuu kuu sheegaa asiga yacni inaysan ku jirin, inuu locked yahay, inuu yahay sheeg zero snap risk, inuu yahay oo 2 ay marayso boqolkiiba 2. laakiin meesha waxaa laga rabaa 70 inay marto, meeshaasna ay tahay snap risk-ka. Okay, boqolkiiba 100 oo yahay logic. Okay, save 30 seconds 24 hours Sunday. Kan yacni ma hal qofkii sameeyay le intaas waday uu ka baxay. Okay, new bear again ku celi. Okay, kana fiirinaynaa kan boqolkiiba 1 ayay marayaan. Yep. Liquidity less than 4k way ka yar tahay 4k liquidity-geeda. Locked waaye. Okay, okay. Sela riskiisa ma fadhiyo. No way. Okay, no, ma rabno kan. New berries again. Meme coins. Meme coin is new berries. Completed. Oh no. Situation-kii hadda ayaan fiirinayno waaye oo boqolkiiba 2 snap risk ay ku jirtay. New creations kuwa hadda la soo sameeyay. I hope waxaan hadda saan aragtid waa snap. Okay, mujida yacni scam waa wax saan markii u boodaan aragtid sababtoo ah fiiri
cabsida laga qabo boqolkiiba zero waa macne yacni rajada laga qabo boqolkiiba zero maraa hal isnaag oo ku jiro meeshan labada ah waxaa laga rabaa boqolkiiba inay noqoto 70 hadda automatic way wareegtay boqolkiiba 20 ay noqotay snap inay yihiin scam. Okay, okay, okay. Waxaa la sameynaya 1 minute frame waa waxaan aan ku jirna hadda 1 minute frame waxaa waaye meme coins-ka lagu sameeyey. Okay, haddaa rabtid inaad fiirisid kuwa trending-ka ah ee laga qadeynayo maanta kan oo kale ku dhufanayna 6 hours oo ka hor la soo geliyey. Yes, hadda kan oo kale markaa fiirino 1 hour, within 1 hour liquidity-giisa haddaa fiirino asne yeah boqolkiiba 70 it's okay, one snap is no problem. Okay, ama this is chartigiisa ima cajibin, chartigiisa ma fadhiyo dadka yes ay leeyihiin holaca locked waaye boqolkiiba liquidity-giisa oo 148 milyan, market cap-kiisa 169,000, liquidity-giisa 50 waaye laakiin chartigiisa ma fadhiyo 1 minute 30 second ugu dambeeyay markaan fiirino kor ayuu u socdaa 1 minute ugu dambeeyay markaan fiirino. Anyway kan oo kale markaa rabtid inaad qaadatid oo trade aad ka sameysid horta kow waxaa iska fiirinaysaa market cap-ka, liquidity-ga, volume-ka iyo holder-iska dadka haysto. Okay, intaas markaa xaqiijisid waxaa fiirinaysaa horta verify maya oo contract-giisa verify maya aad fiirinaysaa. Okay, waxaa kaloo fiirinaysaa locked maya. Okay, sales iyo buyers-ka no way. Okay, yaa badan boqolkiiba. Okay, markaad rabtid inaad yacni aad qaadatid waxaa sameynaysaa copy linkigiisa waxaa sameynaysaa copy ku sameynaysaa halkan aadna ka copy-yin kartaa meeshaas ka copy-yin kartaa copy markaad tirahdid tusaale ahaan waxaad tegeysaa fan-time-kaada markaad tagtid waxaa leedahay bast ayaad leedahay coin-kii inuu kuu soo baxaa. Lagama helayo kan hadda fan-time-ka wax kale ayaa soo baxaya laakiin ma aha. Okay, mid kale ina raadino waaye. Anyway haddii kale wax ka iloobay linkiga ayaad qaadaysaa waxaad tegeysaa bot telegram oo leeyahay Gemini intaa ku dhufanaysaa linkiga taas situation ayaan hore aad u kacsanaya hadda dhulkuu ku jira. For example kan oo kale copy-yeyne waxaad sameynaysaa linkigaas aad taabano searching-ka token-ka aad ku dhufanaysaa no way. Anyway fan-time-kan wallet-kan qaabkaad uga sameysan lahayd log out qaabkaad uga sameysan lahayd account ayaan kusoo diri doonaa ama cashirkaad kasoo sameyn doonaa. Hadda intaas ayaan kusoo kobkeynaa. Waxaan kaloo ka iloobay
coin market cap markaan fiirino hoos u dhac weyn ayaa ka jira markii aan fiirino bitcoin-kii yacni ama top 10-kii oo ku jiray hoos u dhac weyn ah sanadkan ku jiraan bishaan laga yaabaa bisha shanaad bisha lixaad inay yacni soo kacaan maanta oo kale yacni ma fadhiyo suuqa saddex bitcoin mareysaa ethereum 1000 ay mareysaa 1008 haddaad u baahan tahay waad ku tuuran kartaa laga yaabo inay ka maalin 7000 8000 ay tagto that's why okay anyway cashirkan halkaas ayaan ku ekeenaynaa waxaa u baahan tahay macluumaada fadlan youtube-ka markaan soo geliyo linkiga ugu hooseeya kasoo qaada telegramka kasoo raac qaybta description-ka marka telegramkeena kusoo biir waxaa ku jirto dhowr boqol oo arday ayaa ku jirto telegramkeena 309 subscribe aan mareyna cashirada halkaan aan soo geliyaa haddii aad jeceshahay fadlan kusoo biir telegramkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.